الصوماليات قبل كمينيسوتا يقود أهان مريكان كبا waxay isugu yimaadeen in ay dareenkooda iyo baaqooda u diraan caalamka dawladda Soomaaliya iyo shacbiga Soomaaliyeed markasta ay ku nool yihiin kadib xadgudubkii dawladda Ethiopia ay ku sameysay madaxbanaanida dhuleed ee dalka Soomaaliya. barnaamijkan waxaa ka soo shaqeeyay dad aad u fara badan oo isugu jira culimo, aqoon-yahan, ganacsato, dhalinyaro iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota. waxayna doonayaan in ay halkani baaq u diraan dhammaan dadkaas aan soo sheegnay. haddana waxaan ku xijinaynaa war-saxaafadeedkii aan soo diyaarinay kadibna qof walba halkan jooga community-ga dadka noo qoran ayaan qof walba 2 daqiiqo siin doonaa insha Allah si qof walba uu hadlo waqti on time la meesha uga baxna insha Allah. waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Xasan Jaamac oo noo akhrinaya war-saxaafadeedka Soomaaliga. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقعيقو شيخ حسن دوية أنيقو كهالضيا مقع قدقة قبنقابضة شركا يور صحافذات كان أي وحان إذن لو ذاق الدونا مدشا ورصحافذات كي كو آدنا ورصحافذات جنايو لحديدا 2024 مينيابوليس مينيسودا مريكانكا قرب joogta Soomaaliyeed ee Minnesota waxay si adag u cambaaraynaysaa faralka guracan ee Ethiopia ku xadgudubtay madaxbanaanida iyo wadajirka dhulka Soomaaliyeed. Ethiopia waxay ku xadgudubtay shuruucda gobolka iyo tan caalamiga ah taasoo sii kordhinaysa xasilooni darrada geeska Afrika. waxaan ugu baaqaynaa Ethiopia inay ixtiraamto madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya sidoo kalena ay wada hadal iyo iskaashi nabadeed la yeelato dalka ay daraska yihiin ee Soomaaliya. qurba joogta Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in xalka kaliya ee Ethiopia iyo Soomaaliya u furan ay tahay in ay nabad ku wada noolaadaan oo ay abuuraan iskaashi wax ku ool ah oo labada ummadoodba dan u ah. 2 waxaan garab taaganahay diidmada dawladda Soomaaliya ay ku diiday heshiiska sharci darrada ah ee Ethiopia ay ku doonayso inay saldhig military iyo marin badeed ku yeelato gudaha Soomaaliya iyo inay soo gasho xuduudda badda iyo bariga Soomaaliya. waxaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ku taageeraynaa inay diido wax kasta oo ku xadgudbaya madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. 3 dadka Soomaaliyeed waxay u soo dhabar adeegeen caqabado waaweyn iyo nafhurid ku aadan dagaalka joogtada ah ee ay kula jiraan argagixisada gaar ahaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. diidmada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee tallaabada Ethiopia ayaa salka ku haysa iyadoo la fahamsan yahay in falalkan oo kale ay fursad hor leh u abuurayaan Al-Shabaab isla markaana ay halis gelinayso horumarka wanaagsan ee la gaaray Soomaaliya dhinaca nabadda. heshiiska is-afgaradka ah ee xadgudubka ku ah ee loogu yeeray MOU ay Ethiopia ku dhaqaaqday waxa kale oo ay cadaynaysaa toonkii muddada dheer ummadda Soomaaliyeed ka qabeen in Ethiopia ay damac dhuleed ka leedahay Soomaaliya. 4 haddaanu nahay qurba joogta Soomaaliyeed waxaan si buuxda u taageersanahay hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa hal taako oo ka mid ah bariga iyo badda Soomaaliya inaysan cidna saxiixi karin. dadka Soomaaliyeed madaxbanaanida dalka Soomaaliyeedna waa mid aan gorgortan laga geli karin. Ethiopia si sharci darro ah waxay u qabsatay dhulkii Soomaaliyeed ee loo yaqaanay gobolka Ugaadeniya ama Soomaali Galbeed sanadkii 1897 iyo 1948
waxayna maanta Ethiopia si sharci darro ah isugu dayaysaa inay qabsato qaybo ka mid ah dhulka Soomaalida ee xorta ah haddaba waxaan u soo jeedinaynaa dowladda Soomaaliya inay ka shaqeyso siday u soo celin lahayd gobolkii Soomaali galbeed si buuxdana ay u taageerto walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Soomaali galbeed siday u gaari lahaayeen xaqa ay u leeyihiin inay ka tashadaan aayahooda waxaan ugu baaqaynaa walaalaheena maamul iyo shacabba ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ama Soomaali galbeed ama ogaadeen qofba si u yaqaano inay taageeraan dadaalka ay dadka iyo dowladda Soomaaliya ugu jirto inay difaacdo qarannimadeeda iyo madaxbannaanideeda. They say better safe than sorry, and the safest bet, Cenex Maxtron diesel engine. iyo madaxbannaanideeda. 6 waxaan sidoo kale adkaynaynaa in dowladda Soomaaliya ay erido safiirka Ethiopia isla markaana ay jirto dhammaan xiriirka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay dalka Ethiopia. waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay qaadacaan diyaaradda Ethiopian Airlines sida ugu degdega badan ama ugu dhaqsaha badan. waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya inay mamnuucdo dhammaan diyaaradaha Ethiopian Airlines inay soo gasho hawada Soomaaliya ilaa Ethiopia ka ixtiraamayso madaxbannaanida qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed. ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya inay u midoobaan siday u difaaci lahaayeen madaxbannaanida iyo wadajirka dhulka Soomaaliya arrintaasoo waajib diiniya sida Ilaahay noo amrayo wa'tasimu bihablillahi jamiican wala tafarraqu qabsada xariga Ilaahay oo diinta iyo islaamka iyo wanaagga ah oo ku midooba hana kala tegina isla markaana ay meel iska dhigaan kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed. qurbo-joogta Soomaaliyeed waxaa ka go'an inay garab istaagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo ilaaliyo midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida xuduudaha Soomaaliya. warsaxaafadeedkan faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaan gudoomiyaha guddiga shirkan soo qaban qaabiyey Dr. Khadar Jaamac oo kontaktigiisa ama macluumaadkiisa uu ku qoran yahay nuqulka warsaxaafadeedka aan la wadaagi doono miidiyaha isagoo oo qoraal ah. aad iyo aad mahadsantiin.